بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجواهر داهر Global Somali Diaspora قدوميهeda maanta waxaan maaragtay halkan ku sameynaynaa barnaamij gaar ah oo ugu talagalnay in aan maaragtay ku wareysano xubnaheena Somali Diasporada ee ku nool wadanka Kenya waxaan haysanaa marti sharaf badan oo maanta barnaamijka marti noogu ah waxaan kaloo u mahadcelinaynaa martida kale oo maaragtay Facebook ayagana nagala xiriiri doona soo dhawaada mar kale waa barnaamijkeennii isbuuclaha ahaa maanta waxaa inala jooga Dr. Cali Maxamed oo inaga siin doona maaragtay warbixin ku saabsan dhinaca caafimaadka iyo waxyaabaha ka socda Kenya waxaa kaloo marti inooga ah Faatimo Kinsi Cabbaas oo iyaduna maaragtay executive director u ah organization la shaqeeya dumarka iyo carruurta maaragtay qaxootiga Dadaab waxaa kaloo inoo marti ah sheekheena Sheekh Maxamed Shakuul oo asaguna maaragtay dhinaca diinta iyo arrimaheeda maaragtay war inaga siin doona haddii ilaah idmo waxaa kaloo aad iyo aad maaragtay aan usoo dhaweynaynaa oo marti sharaf halkaa inoogu ah qof aad qaali noogu ah waa caaqilkeena weeye caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh oo asagu bahda GSD ka mid ah barnaamijka intiisa badanna soo diyaariyey marka waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan ku hormaro Dr. Cali soo dhawow Dr. Cali aad iyo aad ba u mahadsan tahay waqtiga qaaliga ahaa ee na siisay maanta haddaad maaragtay in yar kooban aad adiguna maaragtay warbixin yar iska bixisid iyo waxyaabaha maaragtay caafimaadka sida uu yahay Kenya sida uu saameeyay cudurkan coronavirus iyo sida maaragtay jaaliyadu runtii ay uga maarkino dadaalayso siday ula qabsan lahayd ama isaga ilaalin lahaayeen oo uga hortagi lahaayeen soo dhawow Dr. Cali if you unmute yourself Dr. Ali waa la maqlayaa aan u malaynayaa hadda ha okay waa salaamantiin kulligeen Jawaahir Mandeeq Cabdiraxmaan Faatimo Kinsi waan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo daawadayaashaba markaan sidii hore loo sheegay magacaydu waa Dr. Cali oo Kenya ku nool muddana halkan joogay ka horena Mareykanka meel ka shaqaynayay markaan waayahan oo dhan arrimahan corona ayaa ku jirnay oo wacyigelin iyo waana iyo dadkii oo loo sheegayo waxyaabahan cudurkan aad marka waa sida la iskaga ilaalin kara markaan hadda Kenya ayaan joognaa haddaan Kenya tusaale u soo qaadana inkastoo wadamo badan uu aad iyo aad u saameeyay oo culays iyo dhibaatooyin u keenay waxaad moodaa Kenya sidii ay yihiin wadamo badan oo Afrika in culayskeeda aad u badneen laakiin haddana ay marneen in shuruucdii iyo waxyaabihii noola sheegay oo in la raaco si cudurkan iskaga ilaaliya aan u hogaansana markaan haddadan wadankan Kenya especially wadanka magaalada Nairobi ayuu u badan yahay macnaha hadda kasoo hadlayo dadka badi la bartilmaamayo oo lagu xamanayo cudurkan inuu aad ugu faafi karana inay Soomaalida tahay ayaa warka magaalada socda iyo saas ayuu yahay maxaa yeelay dhaqankeena iyo nidaamkeena ma u fiicna sidoo cudurkan u faraarayo waxaan nahay anaga dad social ah isku dhex jiro oo isla cunteeya oo isla guri isla joogo waalidiinta iyo awowyaalka iyo carruurta bay isku dhex nool yihiin markaan culays badan ayaa dhinacaas ka jira murugo iyo dareen iyo murugo waayo sida noola sheegay dadka cudurkan aad ku dhacayo inta badan ama aad u asiibayo oo u dhiman kara waa dadka waayeelaha iyo dadka cudurrada qaba haddii aan isla noolnahay waalidiintii iyo dadka waayeelaha carruurta la nool yihiinna run ahaantii waxay u eg tahay cudur aad noo saameyn kara dadkan kale oo shacabka kale oo muslimiinta aan ahayn sida ayaan hadalkii ugu kaalmo waa intaas insha allah si fiican aan usii gudageli doonaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay Dr. Cali warbixintaadaas kooban waxaan ogahay inaad maaragtay runtii shaqo badan aad ka haysid wadanka gaar ahaan sidii jaaliyadeenna qurbo joogta Soomaaliyeed ee wadankaas ku dhaqan
ay ama kenyaatiga markino diasporada ay runtii ay looga hortegi lahaa cudurkan isaan ognahay daawo ma lahan laakiin ka hortag buu leeyahay marka waxaanad sheegtay in maaragtay carab ku dhifatay in soomaalida ay u badan yihiin dadku aadka u saameeyey maxaa is leedahay sababaha ee keeni kara in cudurkani aad soomaalida uu si gaara u saameeyey jawaahir sida aad og tahay anaga shicibka soomaaliyeed iyo dowladeedaba baday weliba shicibka waxaad garanaysaa meelaan ku nool nahayba kuwa jigjigo ku nool kuwa kenya ku nool kuwa soomaaliya ku nool iyo kuwa qurbaha ku noolba waa dad isku dhaqan isku af isku diin si walba haddii aad u fiiriso markaan taas waxay tusinaysaa soomaalida waxaa aad ugu adag u hoggaansanka sharci nooc u ahaadaba sharci dowladeed mase sharci shicibka loo soo dejiyey mase wax u ahaadaba aad iyo aad bay ugu madax taagaan oo ugu adag yihiin waxaa ka mid ah waxyaabaha hadda corona looga cararaayo masaajidada camal waa la xiray waddankan kenya sidii meelo badan aad ogtahay loo xiray suuqyada badan waa la xiray soomaalida haddadan bisha barakaysaneed ayaan ku jirnaa oo ramadaanka ahayd waxaa lasoo sheegaya masaajida badan in haddaba taraawiix lagu dukado waana waxyaalaha yacni ugu jecel yahay corona inuu ku faafo meelo bulsho oo saas laiskugu imaaday waxaa ka mid ah dad isla afuraaya sidii caadiga ahayd sidii marka corona jirin camal hadda weli isla afuraaya sidii hadda nairobi camal tuulooyinkan islii camal oo isu imaado oo si caadi nolosha aan waxbana aan ka bedelin waxaa ka mid ah suuqyadii waxaad moodaa dadkii in ay ka baqayaan askarta oo iyaga ay caafimaadkaada ay fiirinaynin oo markuu qofka maska isagoo xirneen ayuu nin askari halkaas oo fog ka arkaya markuu askari soo socdo masana xibnaha dowladda ciidamadii waxaan socdo u arka ayuu maskiga xiranaya marka waad garan kartaa qofkii waas inuusan kala jecleen run ahaantii waa nahay dad muslimiin qadarka waa aaminsannahay waqti kasta markii waqtigaadii la gaarana waa dhimin kartaa laakiin haddana waxaana la yidhi mataqaanaa is-ilaali ilaahayna aamin adna is-ilaali ilaahayna aamin ortaadana jara ay dhihi jireen aan umalaynaa soomaalida marka taas ayaan aad iyo aad cudurka annaga dhici karta inuu aad noogu faraaro anagoo is-ilaalinaynin bulshadan kale oon annaga ku noolnahay hadda kenya camal haddaan tusaale ahaan kuwa soo qaatay aad iyo aad bay shuruuc ugu hoggaansameen maskiga waa xirtaan kala dheeraashada waa sameeyaan jawaahir waxaa kaloo jirta maqaayadaha hataa waa la xiray waddankan kenya waxaa noola sheegay dadka soomaalida in maqaayada qaybta hore ay xiraan oo qaybta dambena ay iskugu imaadaan ayagoo fara badan oo haddana keeni karta cudurkan inuu aad u faraaray in laga joogana waa muhiim maxaad marka dr cali maxaad kula talin lahayd adigoo dhakhtar khibrad u leh cudurkan aafadiisa iyo dhibaatooyinkiisa siduu maaragtay adduunkii oo dhan u saameeyey intaasoo kumaan kun oo dada naftooda ku waayey malaayiin kalena ay la tabaala dhacsan yihiin maxaad kula talin lahayd muxuu ahaa jaaliyadda soomaaliyeed jawaahir taladaas horta meelo badan oo laga sheegay waa jiraan waxaana rajaynayaa dadka inta badan raadiina waa dhegaystaan hataa mar walba waa la maqlaa laakiin waxaan u malaynaa culayska ay leedahay dhibaatooyinkaas keena weli dadka inaad ka dhacsaneen cudurkan waxaa weeye cudur marka ugu hore agtiisada aad ka qaadi karta markaa hendhista qaadaysa qufac ayaad ka qaadaysaa qof meel ku hendhisiyoo taabatay oo qofka ku taabtay mase sidii salaam kuu taabtay ayaad ka qaadi kartaa marka waxaan u sheegaynaa dadka qof dhimisho ka cabsanaya ma jirto ileen qadarka wuu jiraa laakiin is-ilaali ayaa lagu yiri muhiimadana waxaa waaye cudurkan mar hadduu kugu dhaca wuxuu dadku laaynayo waxaa waaye qandhada ma ku dilaysa madax xanuun ma ku dilaya laakiin sanbabkii la wareegayaa wuu qabsanaya waad og tahay injinka ugu muhiimsan shakhsiga bini'aadanka oo neefta noo kala gudbinayo waa sanbabkii mar haddaa lagaa xira waa kuu dhammaatay tusaale ahaan dadkii uu ku dhacay oo aad ugu dhacay markii aan waraysanay waxa ay dareemayaan jawaahir waxaa ka mid ah qof markii madax la soo qaaday oo biyo madax laga geliyey oo muddo dheer lagu hayay oo neefsan karin qofka sanka uu ka neefsanaa laakiin neefta uma gudbayso so choking ayaa la yidhahdaa yani qof oo chok garaysan oo neefta ay marka khatartaas marba hadday neefta saas kaaga xirantana fi amaanilahi waa sidii ayaad ku tagtay midda kale dadka dhalinyarada oo aad u socodka badan oo shuruucdan u hoggaansamaynin waxaa la rabaa inay fahmaan
حتى waxaa dhici karta ayagu inuu aad ugu dhicin oo si fudud ugu dhac laakiin waxa la rabaa inay ogaadaan inay dibid ka keenayaan waalidiintoodii oo waayeele awoowayaalkii ayeeyaalkii inay u keenayaan oo ay halis u tahay sababa ay gacantooda ku keeneen lugahooda ku keeneen in ay ku asiibto oo u dhintaan waalidiintii iyo ayeeyaalkii way aad u jecel yihiin marka muhiimadda hadda iyaga ay u malaynayaan nin dhalinyaro aan nahay mas gabar dhalinyaro aan nahay caafimaadkayga waa fiican hadduu igu dhaca cudurkan ani wax weyn igama qaaday waxaad ogaataa waxaad ku xiran tahay waalidiin iyo bulsho iyo shakhsiyaad kale ayaad ku xiran tahay waa inaad bulshada noloshooda ilaaliso ood badbaadayso gacantaada ayaynu ku xiran tahay marka soomaalida waxaan u faraynaa oo ugu celcelinaynaa in ay u hoggaansamaan shuruucdan la sheegay oo ah in bahalkan la xirta mask mar walba haddii aad dibadda joogto in intaad awoodi karta aad guriga joogi karta in kala dheeraashada ay ku dadaalaan in meelaha barkood markii ay joogaan hadday hindhisi iyo qufac dareemaan ay dadka kala fogaadaan shuruucdan ayaa loo baahan yahay in loo hoggaansamo run ahaantiina wax weyn oo isbeddel ayaa lagu arkay jawaahir maxaa yeele waxaad ku garan kartaa wadamihii uu safmar u maray sidii talyaaniga marka hore uma hoggaansamin shuruucdan maalintani 800 qof ayaa ka dhimanaysay haddana shareecada markay u hoggaansameen waxaad aragtaa ilaa iyo 100 qof kale inay ka dhimanayso 800 ay ka soo bilaabatay hadda 100 ay joogtaa waana hoos buu u socdaa marka sida maaragtay khibrada aqoon-yahaniinta dhaqaatiirta ku takhasusay cudurkan sida adigoo kale kulli waxa ay inoo sheegayaan waxa weeye in sharciga loo hoggaansanaado oo masaafadana la kala fogaado socodka la yaraysiiyo dadku ay guryahooda joogaan isu imaanshaha weeye waxa cudurka faafinaya oo runtii xawaareynaya runtii inay dad badan u dhintaan ama ay qaadaan cudurka marka runtii in badan dadkeenna waxay u baahan yihiin arrintaas inay ka dhaadhacsanaato kale basaan farintaada u fahmay dr cali aad iyo aada ugu mahadsan tahay warbixintaas koobana ina siisay kolleyba gadaal su-aalaha iyo jawaabaha qaybtiisa ayaan maaragtay insha allah kugu soo noqon doonaa waxaan jeclahay hadda inaan soo dhoweeyo waxaan rajaynayaa sheekh maxamed shakuul inuu inagu soo biiray ahlan wasahlan asalaamu calaykum sheekh maxamed may maqlaysaa I think hadda mute ku jirtid mutkina iska bixisid insha allah soo dhawow sheekhuna aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga na soo siisay ilaahay ajir xasanada ha kaa siiyo maanta sidaa ula socotid golaha qurbjoogta soomaaliyeed barnaamijkan ay soo qabanqaabiyaan waxaan ugu talagalnay wacyigelin iyo wax isdhaafsi wada qaybsi dhibaatooyinka cudurkan aan isdhaafsano ka wada hadalno siduu gaar ahaan Kenya u saameeyay shacabkeena ku dhaqan marka inaa bal dhinaca maaragtay dadkii hadda wad maqlaysaan u malaynaya Dr. Cali waxyaabaha ugu muhiimsan ee maaragtay runtii wacyigelinta ah in cudurkan ka hortagiisu ay tahay runtii daawadiisu ka hortagga kaliya inay tahay marka ka hortagiisana ay tahay in dadku ay masaafo kala qaataan oo socod kala yaraysiiyo marka bal dhinaca maaragtay adiga dhinaca khibradaada sheekh weyn oo waxaa tahay mujtamacan runtii ku dhex jira aad iyo aadna uga warqaba agtoodana qiimo weyn ka leh runtii bal inaa maaragtay nala qaybsatid adiga dhinacaaga horta khibradaada cudurkan iyo shacabka si u saameeyey dhinaca kalena diiniyan maaragtay muhiimadaada waa maqlaynay Dr. Cali inuu lahaa weli dadka qaarkiis baa meelaha qaarkood baa runtii taraawiixda lagu tukanayaa muxuu ahaa masaafadii taasu maaragtay inay yareynayso oo dadkii cudurkii faafintiisii ay sii badin karto ayay keeni kartaa marka soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد والله مغلابا نمالينيا سفي عن شيخنا جواهر ولا الأدب ما صنتهاي خيارتك كلام ماشي كوتشستا باصدورك يا دكتورك وسلامتي السلام عليكم دمانتين وعليكم السلام كنتي ده وحني وامتحان من الله يو عذر كنتي يابله هيستوريكا muddo dheer kadib soo noqday 100 sano kadib weeyaan oo dadku ay la qabsan la yihiin
soomaalidana runtii sidii dhakhtarku sheegay saameyn weyn buu ku yeeshay aad buu ugu dhacay waana diidan yihiin soomaalidii midda inay u arkaan inuu cudur maaragtay aan jirin yahay ka sokow hadda waxaa soo badatay arrin kale oo ah inay ceeb u arkaan inay cudurka qabaan stigma arrin la yidhaha baa jirta hadda maxaa jira hadda waxaan ogahay aniga qisooyin aad iyo aad u leh oo dad intii cudurkii lagu arkay la karantiilay soo baxsaday dad ku riday dadkiina ay u dhinteen haddii la yidhaahdo cudurkaasaad qabtaan ama ha laydin daaweeyana waxa weeye sheekadu hadday rabto qabiil bayba aadiba marka dambe unfortunately marka wixii halkii la dhihi lahaa waxani waa cudur ilaahay baa keenay ma aha qofka nusqaan ama ceeb uu leeyahay ma aha waa wax ilaahay keenay dadkii inaad uga waranto cudurku wuxuu yahay iyo experiencega aad kala kulantay iyo treatmentiga aad heshay treatment maba laha iyo you know how to cope with it all this intii laga hadli lahaa qofkii uu qarsanaya qofkii ku sheegana uu la dagaalamayaa marka arrintaasaa hadda dhib kala ah waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo symptomskii lagu arkay iyo kuwo uu intuu ku dhacay la joogay uu ku dhacay la joogay oo la noolaa oo la shaqaynayay maaragtay waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah dhakhtarkuna uu og yahay soomaalida laga helay coronavirus in Kenya qaar badan oo ka mid ah telefoonadii way dansadeen markii inta wasaaradda Minister of Health soo wacday ay ku tiri positive baa tihiin that was the last time oo la arko oo la maqlo meel adduunka joogaan marka isagiina waa safar garaynaya waxaa laga yaabaa guriga uu ku nool yahay laftigiisa dadka kula nool inuu ka qariyo inuu positive yahay oo stigmada marka arrinta hadda aan isleeyahay dhib weyn baa ka jira fikirkan denialkana soomaalida waa wax dhaqanka cultureka soomaalidu ka mid yahay waxyaabaha kale oo dhan waa laga hadlay isdhexgalka iyo bulshada iyo salaanta kulli laakiin the problem of mataqaana denialka dhibka jira waxyaabaha qurbaha aynu ku aragno waxaa ka mid ah waad ogtihiin carruurtii oo gangis wada noqotay oo drug dealers noqotay hooyadii wiilkeedii oo drug dealer ah oo notorious groups ku jira oo gangs ah yaa waxay ku leedahay wiilkaygu waa weli ilaahay habeenkii buu salaatuleyl tukadaa the next thing you hear waxa weeye waa la joogtay ma garatay oo darooga lagu qabtay waa la xiray maxaa jira ceeb bay u arkaan marka aan waxaan isleeyahay waxaan u baahanahay waxa weeye wacyigelintii hore ee afka ha la xirto ha la kala fogaado social distance wearing the mask maxaan ku idhahdaa waa aad bay u fatay midda hadda aan u baahanahay waxa weeye in dadka la fahansiiyo cudurkan inuuna ceeb ahayn hadduu kugu dhacana dhib ayna lahayn ilaahayna uu keenay waxyaabaha anigaan soomaalida u sheegi jira waxaa ka mid a markaan dibadaha joognay carruurta qisadii nabiyullaahi nuux oo 950 sano dadka diinta ugu yeerayay wiilkiisii baa gaaloobay oo diintii qaadan waayay oo markii dambena dadkii la halaagayay ku biir marka waxaan raahdaa arrintaa nabiyullaahi nuux ma aad iyo ceeb bay ku tahay in la yidhaha nebi baa tahay hawkan adoo nebi ah wiilkaagii uu gaal u noqday yacni qofkan waa gooni wiilkan hadduu adigu aad waalid fiican tahay wiilku hadduu hallaabo dhibaato ma leh nebiyadii baa carruurta nabiyullaahi ibraahim baa aabihii gaal ahaa oo diinta ugu yeedhayay nabiyullaahi maxamed ayaa adeerkii mataqaanaa diinta ugu yeedhayay oo maaragtay oo sida ah luud oo xaaskiisii gaalooday nuux oo xaas waxaa kada marka dadkii marka waxaa loo baahan yahay cudurkii horta in la wajaho waxaan ilaahay baa keenay ceebna ma aha waa qadar ilaahay subxaanahu watacaala inuu qofku xun yahay ama inuu liitana ma aha marka horta anu qodobka koowaadeen rabay maanta inaan dhakhtarka iyo ambasadorka iyo jawaahir aan rabo inaad aad ila fahantaan oo dhib weyn ah waa qadiyadda denialka iyo stigmada communityga dhexdiisa ah oo cudurkii sii faafinaysa qofkii isagoo qabo inkiraya markaasuu meel walba tegaya markaasuu sii qaadsiinaya kuu sii qaadsiiyeyna uu inkiraya kii kalena uu inkiraya kala sii qaadsiiyey kasi yani saasay ku soconaysa and everybody is denying yani qisooyinka maaragtay waxaa weeye marka arrintaas waa dhib jira marka annaga hadda Kenya ama Soomaalida guud ahaan meel walba dhibkaas waa ka jira midda diintaan rabaa inaan waxyar ka dhaho waxaa weeye waxan ilaahay baa keenay dadku waxaa rabaa inay fahmaan qofku cudurkaas ku dhaco ee u dhinto horta waa shahiid nabiga inoo sheegay xadiis saxiixa marka horta hadduu kugu dhaco
ood ka bogsatana dambi dhaaf buu ku yahay qofku markuu xanuunsado ilaahay waa u dambi dhaafaya waa koob haddaad ku dhimatana shahiid baa tahay hadduu ilaahay kaa badbaadiyena waa wasaad rabtay marka wax horta dhiba xagga diiniyan ma laha cudurkan markii ugu horreysay kii ugu ballaarnaa wuxuu faafay markay taariikhda 580kii daacuunka la odhan jiray alcamwaas camwaas waa magaalo ku taala baytulquds agteedu ka dilaacay wuxuu ahaa plague ama pandemic runtii yaab leh oo ummadii baabi'iyey oo boqolaal bal kumanaan waxaa la tilmaamaa 70,000 inay ku dhinteen waqtiga isaga waa waqtigii cumar ibn khataab radiyallahu anhu amiirka muuminiinta ahaa wey marka waxyaabaha la sameeyey waa marka waxay ka mid tahay in markii dadkii baaba'een ee lasku dhaxyaacay markii dambe saxaabada yani kuwii ugu waaweynaa baa ku dhintay waxaa ku dhintay mataqaanaa abu ubayda caamir ibn jarrah oo 10kii jannada loogu bishaareeyey ka mid ah waxaa ku dhintay saxaabigii la oran jiray mucaad ibn jabal baa ku dhintay iyo saxaabo waaweyn oo rasuulkan waxaa lagu tilmaamaa tirada ugu badnayd ee saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam meesha ay ku dhinteen hal meel atago waxay ahayd meeshaas taaxunkaas camwaas oo Syria ku yaal markii dambe and this is the most important point markii dambe wuxuu ilaahay ku badbaadiyay nin saxaabi ah oo nin aad iyo aad u caqli badan oo abqari oo very smart oo la oran jiray Amr ibn As saxaabi la oran jiray markii dambena governor looga dhigay Masar ayaa wuxuu hirgeliyay تعليمات رسولك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تاو حكوا الرئيسي مركي دتكي كل إذان أي عمر بن الخطاب وحو دمع إنه هذا ماشي وصاب حي وحسو هذه محمد هذا عري بسو هذه مقالة مركو أقمر أيو يدد فربدا كوري مادة عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين تعاد له سو دوي dabadeedna si loo tashado si loo wajihi lahaa meeshan dadku ay cudurku ku laynayo yani si dadku boqolaal kumanaan bay u dhimanayaan dadkii qaarna waxay ku taliyeen waxay dhaheen amiirka muuminiinta tahay dadku waa dadkaagii come and share the pain with them kaale moral support way kaaga baahayin kaale u tago la hadalo niyadda u dhiso wax la qabo qaarna waxay dhaheen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadduu cudur ka dilaaco meel plague hadduu meel ka dilaaco ka ku jiraan ayuuna ka soo bixin midkan ku jirina yuuna gelin buu yiri Umar oo ha gelin saxaabi waa kan xadiiska Abdurrahman ibn Auf loo oran jiray Umar wuxuu ku qancay taladii iyada ahayd isoo ogtiin inuu nin geesi ahaa oo maaragtay geesinimadiisa oo nabiga ku tilmaamay shaydaanka xitaa ka baqa ayuu haddana isagoo nafta bini'aadmiga wax ka qaalisan ma jiro isagoo naftiisa ka fakaraya isagoo dabaqaya oo implementation ku sameynaya xadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu wuxuu go'aansaday inuu iska laabto kadibna markii uu dhintay ninkii la oran jiray Mucaad ibn Jabal oo governorkii labaad ahaa ee meesha ku dhinta ayaa Umar ibn Aas loo dhiibay Umar ibn Aas marka wuxuu ku tilmaamay markuu cudurka faafintiisa ku tilmaamay wuxuu yiri waa sida holac oo kale wuxuu dhacay holaca as long as wuxuu guba helo uu shidmaya laakiin haddii holacu uu if the chain is cut ma garato waa sida hadda ay dhahaan wuxuu yiri cudurkan waa sida holaca oo kale ama olalka oo kale meel uu ku gubto hadduu helo uu gubanaya laakiin meel uu ku gubto hadduu waayo meeshiisu ku dabaya in other words dadku hadday kala fogaadaan oo waxa weeye waxay cudurku yaraanaya ka bacdi wuxuu amray dadkii magaalada joogo dhan inay ka baxaan magaalada Camwaas magaalo weyn oo taariikh ah bay ahayd oo mataqaana xilligii Romanka xitaa jiri jirtay Camwaas baa you can google and check magaaladaas buuraha ku hareeraysnaa magaaladu wuxuu amar ku bixiyay qof walba inuu magaaladii ka baxo buuraha la fuulo oo more ventilated ahaa lala kala fogaado sidaasaan cudurkii ku baaba'ay marka islaamku saas ula dagaalamay ma aha inaad dhahdo qadar ilaahay weeye laakiin qadarta ilaahay Umar ibn Khattab markii lagu yiri ma qadarta ilaahay baad ka cararaysaa hadal cajiib ah oo taariikhda gala yiri wuxuu yiri nafirru min qadari illaahi ila qadari illah qadarta ilaahay baan ka cararaynaa qadarta ilaahayna waan u cararaynaa cararka laftigiisa waa qadarta ilaahay to take care of yourself ayada naftirkeeda qadarta ilaahay marka Soomaalidu inay fahmaan ayaa loo baahan yahay arinta labaad ee rabana waxa way xagga diinta nimba waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam baacada dadka la galayay oo allegiance-ga uu la galayay dadka ayaa waxa loo soo sheegay dadka soo socda oo raba nabiga inay gacan qaadaan oo mataqaana baacada iyo heshiiska ay la galaan inuu ku jiro nin qaba cudurka la yiraahdo judaanka oo
leprosy-ga cudurka la dhaho oo cudur xun ah oo contagious ah baa loo sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri meeshiisu ayuu ka salaaman yahay wada social distancing hadda aan ka hadlayno meeshiisu ka salaaman yahay agreement-tigana halkaas fariintan hadda virtual baan u sheekaysanaynaa halkaas aan beecadii iyo heshiiskii kaga qaaday muuna dhihin waan aniga nabi ilaahay baan ahay oo waxba la iga qaadi maayo qadarta ilaahay muuna dhihin oo ninkii muuna soo dhawaysan wuxuu yiri stay where you are let him stay fariin buu u diray intuuna imanin wuxuu yiri waxaad ku tirahdaan he should stay where he is halkaas aan wixii heshiisa aan ku kala galayna marka fikirkan la leeyahay waxan waa qadar ilaahay iyo qadarta ilaahay waa fikir shariicada islaamka khilaafsan oo diinta khilaafsan diinta islaamka waxay rabtaa inaad naftaada badbaadiso ummadana inaadan dhibaataynin ummadda xadiis kale waxaa jira nabigu yiri qof xanuunsan ama neef xanuunsan yaan loo keenin neef caafimaad qaba marka islaamku wuxuu qirayaa waxaan la yidhaha contagious diseaseska inuu wax jira yahay loona baahan yahay in laga taxadaro marka waxaan leeyahay walaalayaal waad mahadsantihiin hawshaan hawl culus baa inoo taalla dadka wacyigelin ay u baahan yihiin inaynu wacyigelino insha allahu tacaala haddii kale waxa weeye mujtamacan waa baaba'aya sida hadda haddaysa aad iyo aad ba umahadsantahay jasaakum allah khayran sheekh maxamed shakuul waan kusoo noqonaynaa waqtiga su-aalaha runtii fikirkaaga markano ku aadan arrintan covidka iyo siduu markano mujtamaceena runtii ugu faafayo aad baan kaaga mahad celinaynaa waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo walaasheen faatuma kinsi cabaas waxaan rajeynayaa inaad khadka ku jirtid may maqlaysaa faatuma السلام عليكم فاطمة هذا أنمت إسكو سميست ها السلام عليكم والله لسود هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها فاطمة waxaan runtii aan kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ee nasiisay markale Faatuma waxa weeyaan waa agaasimaha ururada samafalka ee ka shaqeeya Kenya gaar ahaan maaragtay kaamka qaxootiga ee Dadaab dumarka iyo carruurtana runtii shaqo badan maaragtay la qabatay marka haddaad naga siisid xogaa yar oo warbixina Faatuma shaqadaada ku aadan dhinaca kaamka Dadaab iyo sida maaragno ka hortagga gabdhaha iyo carruurtaba aad runtii dumarka aad ugu dhiirigelinaysaan inay maaragtay ay iska ilaaliyaan cudurkan faafintiisa soo dhawow Faatuma جزاك الله خير ومحسن tahay walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد جواهر sheegtay magacaygu waa Faatuma Kinsi waxaan la shaqeeyaa non governmental organization-ka magaalada Garissa xafiis ku leenahay aradaha Pastoralist Girls Initiative waxyaalo badan baan ka shaqeynaa laakiin markaan ku soo aruursado arrimaha caafimaadka aan ka shaqeyno iyo arrimaha hadda cusuban oo COVID-19-ka horta waxaan la shaqeynaa carruurta oo maaragtay diabeticska haya ayaan kala shaqeynaa xootiyaha diabeticna waa ailing disease waa waxa u fudud maaragtay covidka dadka uu ku dhaco waa dadka xanuunaha hore sii hayay marka carruur hadda waxaan la shaqeynaa ilaa iyo 289 ilmood oon daawooyinka siinaa oon maaragtay wixii la isku cabiraya aan siinaa Garissa dhan baan ka shaqeynaa laakiin khaasatan Dadaabna waan ka shaqeynaa host communities kanan aad oo la shaqeynaa inkastoo arrinta diabetics among childrenka aan ilmaha qaxootiyahana ay ku jiraan oon wacyigeli waxyaalo kale aan ka siinaa waxaan la shaqeynaa community health workerska oon ayakana maaragtay training u sameynaa oon waxyaalo badan oo arrimaha diabeticska carruurta ka barnaa laakiin khaasatan haddaan kusoo noqdo arrimaha COVID-19-ka waxaan la shaqeynaa 100 CHVs-ka community health workerska hadda currently kuwaasna waxaan u sameynay sensitization-ka arrimaha COVID-ka specifically siday dadka maaragtay xanuunaha sii haya horaan ay u saacidayni lahaayeen oo la qabani lahaayeen waxyaalihii loo baahnaana waan siinay like gloveska ayakaan horta train garaynay with the department of healthka ka dambe ayakana inay sensitizationka ay sii sameeyaan oo maaragtay house to house ay dadka ilmihii aan support garaynayno ugu tegaan waxyaalaha kamid aan ku saacidayno waxaa waaye inaan ilmaha sayto maaragtay sanitizerska ay haystaana inay biyo guryaha yaalaan oo biyo ay jiraana because cleannesska hygiene-ka very important ka ah
inay ilmaha maskiga haystaana waxyaalahaas ayaa maaragtay aan culays u saarnay teeda kalena waxaan ka shaqaynaynaa sidii maaragtay at least several areas workstation water stationka biyaha loo samayn lahaa wixii qalaboo loo baahnaane loogu saacidayn lahaa markaan dhinaca gabdhaha galo because annaka waxaan aad uga shaqaynaa arrimaha gabdhaha gabdhaha dhinacyahooda waxaan samaynaa horta covidka waxyaalo fara badan oo dhibaato badan oo horaan ka hortaagnayn oo leeyahay waad ogtihiin Kenya iskuuladoo dhan way xiran yihiin maanta iskuul ma jiro ilmihiina guryahay joogaan so abuse-kana waa too much specifically waxaa jirta increase of teen pregnancy cases hadda waxaan helnay gabdha maaragtay teen pregnancy kusoo baxay cases waxaa jirta maaragtay gudmo oo hoos socoto oon horaan ka hortaagnayn waxyaalo fara badan hadda baa soo babaxahayaan marka waxaan qabnaa toll free number oo la soo wacani caseska markuu soo baxo oo maaragtay laga horgaarayo oo maaragtay sidii gabdhaha looga qabanayo hadda Garis camal waxaa ka dhacay floods baa ka dhacay floodski ka dhacay displacement uu keenay displacementski uu keenay covidkina waa nala joogaa hadda specific case Garissa magaalada hadda aan joogo ma jirto laakiin magaalooyin badan oo xuduud u leenahay ayaa hadda maaragtay wajeer camal cases baa ka soo baxay oo maaragtay qatar ina hadda anakan wax na soo galo mana la kala xirno dadkii waa la isku socdaayo maaragtay wajeer iyo Garis waa la isku tagahaya hadii jidka toos la maray hadii jidka kale la maro waa la isku imaanahaya oo dhibabkaas hadda iska jiraan dadkii oo maaragtay displacementka ku dhacay oo maaragtay hadda IDP centerska joogaan wax musaacado fiican oo maaragtay arrimaha covidka siinahaya ma laha priority-ga humanitarian-ka paadka la fiirinayo waxaa waaye gogol may haystaan cunto may haystaan the part of covidka waxay u baahanayeen mise sensitization kasta isku ilaalin lahaayeen wax hadda weyn oo la sii sameynaya ma laha red cross unbaa uu maaragtay aad u dadaalahaysaa dhaqaalihii oo dhanna wuxuu ku xirmay dowladda oo ministryga healthiga hayaa ministry of healthigana research iyo waxay culayska siinahaysaa testingka laakiin dad weynaha oo maaragtay gudaha weli may u soo gaarin waan ogsoontihiin Kenya waxaa jira maamulaad oo maaragtay national levelka iyo county levelkana danteeda ay qabsanaysaa oo shaqadii loogu talagalay ministryga inkastoo wada coordinate garanayaan badi laakiin waxay disconnection ayaa jirta because waxyaalo fara badan oo la rabo inay dadweynaha soo wacyigeliyaan ma ka socoto marka hadda annaka dadaalkayna waxaa waaye sideen dadkii u wacyigelinaa iyo maxaan ku saacideyni karnaa waddanka annaka aan ka imaanay scarcity of water iska jira aniga gurigayga aan deganaa hadda waxaa la arkaa biyo inaan 3 maalin ay ii imaanin haddii aan awoodo inaan gato booyad baan soo gadani waan shubanayaa laakiin haddii aan awoodin inaan biyaha gato oo macdalaahi dadkina uu rafaadsan yahay covidkina hygiene-ka gacmaha iska dhaqa mar walba lagu leeyahay biyihii la cabana aad haysanin dhibkeeda jirta marka scarcity of water ayaa horta magaaladan aad uga jirta waxay inkastoo organization fara badan ay joogaan oo organizationskaas ay support siinahayaan laakiin sidii la rabana weli ma aragtay waxaa iska jirtaa suushiaka ka dhawaajina stigma fara badan oo dad badan waxaa jirtaa isqarinahayo oo xanuunihinahayo oona isa soo bixin rabin laakiin annaka waxaan culayska saarahaynaa dumarka aan culayska saarahaynaa gabdhaha iyo waxaan culayska saarahaynaa ilmaha current liga programka inay ku jiraan oo diabeticska qabaan because ayaka u liita kuliko dadka kale because already ayaka xanuun baa hayaa xanuun kale hadduu ugu sii darsamo waa xaaladooda ma fiicnaanayso marka arrimahaas ayaan hadda ka shaqaynahaynaa sidii maaragtay aan wax u gaarsiin lahayn aad iyo aad u mahadsan tahay Faadumo runtii waxaadna tusaaleysay xaalad kale oo maaragtay yani dhinac kale ah gaar ahaan sida deegaanadaasi runtii uu iyagoo markii horeba awalba yani xaalado adag isaga jiray haddana saameynta covidka yani dhibaatooyinka uu keenayo ama keeni karo runtii waxa weeyaan aad u mahadsan tahay waxaan su'aalaan arkayaa kulleyba maarkino dadka maarkino live-ka nugula jira Facebooka waxaan idinka rajaynaynaa inaad maaragtay aad noo dulqaataan su'aalaha gadaal baan kasoo sheegi doonaa haddii ilaah yiraahdo waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo markaan Caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh oo asagu nin runtii activist ah oo aad iyo aad uga shaqeeya maarkano jaaliyadda markiisa horena reer Australia ahaa hadeertaana indhowedle ku nool magaalada Mombasa
runtii si aadana maaragtay ugu dhundaloola waxyaabaha jaaliyadeena ka socda hadba meesha uu joogo iyo meelaha uusi jooginba runtii marka bal fikirkaaga ku aadan caaqil arrimaha covidka sida uu maaragtay magaalada aad joogtid ee Mombasa iyo Kenya u sameeyey iyo guud ahaan Soomaalida dhibaatooyinka hadda aad maqashay ee maaragtay Dr. Cali iyo Sheekh Shakuul iyo walaasheen Faatuma Kinsi ay nala qaybsadeenba waa waxyaabo runtii nagu soo noqonaya weeyaan marka bal adiguna nala qaybso fikirkaaga soo dhawow caaqil unmute yourself عاقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن سلام يا جواهر يا مانديق يا الشيخ محمد يا دكتور علي يا فاطمة كين يا دمان ولا كورونا داونايو وأنا كمان معلنا Somali Global Diaspora برنامج شذا أودان وعي قرنتا يو إن أمده وحلو شيء ما شاء الله وأنا كمان معلنا يا بقول هدي أنا وجود قل برنامج كوفيد 19 كا يدباتوين كوكو هاي الصومالي ذا كنول بمباسا أما كينيا runtii dhibaatada way badan tahay dhakhtarkan wuu ka hadlay sheekh maxamedna wuu ka hadlay dadkii inta badneyd wuxuu ku riday dhaqaale darro iyo shaqo la'aan iyo dadka Soomaalida ayaga marka hore magaalada Mombasa waa magaalada kaliya dekada u ah Kenya oo laga soo dejin jiray alaabadoo dhan dekadina waxaa ku dhacay inay xirmato oo loo wareejiyay Nairobi dadka Soomaalida waxay u badnaayeen dad baabuurey ah oo ka shaqaysan jiray clearing forwarding iyo baabuurta iyo dekada wax ka soo bixin jiray dekadina hadda way yaraatay shaqadeedii haddana waxaa sii dhacday in covidka uu ku yimaado dadka inta badan waxaa laga soo biilaa qurbaha inta badan qaarna way shaqaystaan kuwii shaqaysan jirana shaqadii baa ka istaagtay oo shaqo ma laha magaaladii cudurkana wuu yimi karoonihii hadda weegaga u dambeeyey waxaa la xiray suuqa ugu weyne Soomaalida ka shaqaysato oo ku yaalo Mombasa kan Nairobina waa la xiray kan Mombasa wuxuu saameeyey Soomaali badan oo ka shaqaysan jirtay iyo kuwo badan oo ku dul noolaa oo dadkaas wax siin jireen marka dad badan oo dhibaato ka soo gaartay corona ayaa meel walba laga arkaa dhibaatadoodii xataa maskiga oo face maskiga xataa waxaa laga gadaa 50 shilin oo Kenya shilin dad badan waxaa arkaysaa aan gadan karin oo booliiskana ay tumayaan macnaha haddayna haysan waa la tumaya halkan qofkii marka dhibaato badan bay Soomaalida qabaan xataa dad badan oo business people ahaa oo maqaayado lahaa sida anigoo kale hadda project yaa sameynayna maqaayad dhismihii baan wadnay dhismihii wuu naga istaagay intuu coronaha socday qarash kiraa nagu socoto oo macnaha guriga karadiisay dad badan oo saas oo ila midana way jiraan oo business ka istaagay ama shaqaale u shaqaynayay lacag ilaa hadda siinaayo marka dhibaato ba'an buu ku hayaa Soomaalida iyo dadka kale oo masaakiinta oo danyarka dhibaatooyin ba'an buu ku hayaa cudurka hadda dhinaca dhaqaalaha dhinacii daawada ama cuntadii xataa ma haystaan marka dhibaatada aad bay u ballaaran tahay dadkina Soomaalidana ma maqlaayaan inay guryaha fadhiistaan ama social distance ama inay maxaa la dhahay xaafado ka afuraan oo dadka Soomaalida bariga Ramadaanka oo kale dadka way isku tagaan oo way afuraan oo waxbay isla cunaan marka dadkii xataa afuri jiray oo dadka kale ku tiirsanaa ku dul noolaa xataa waxay ku soo dhaceen meel cidla meel lama aadi karaan Mombasana waxaa ka jira curfew bandowna wuu ka jira habeenkii from 7 ilaa salaada subax lama socon karo haddana waxaa ka sii jira maxaa la dhahay curfew good oo macnaha aan la socon karin oo dadka isku bixi karin meel la aadi karin magaalo la aadi karin marka dhibaatada corona aad buu u saameeyay especially Soomaalida oo ah dad aan waxba maqlin oo sharci raacin oo wixii rabaan iska sameynaayo oo meesha rabaan isku raacayeen group hadda magaalada ayadoo bandow ka jira habeenkii waxaa arkaysaa Soomaali badan oo habeenka socoto oo meel ka soo wareegayso oo la qabsanaayo marka dhibaatada aad bay noogu badan tahay waxaan leenahay culimada Soomaalida inay noo duceeyaan insha Allah in Ilaahay cudurka naga qaado marka dhibaatada ma yaro aad iyo aad baa u mahadsan tahay caaqil Cabdiraxmaan runtii gaar ahaan dhinaca maarkin oo dhaqaalaha saameynta uu ku yeeshay cudurkani mujtamaca Soomaaliyeed waa arrin runtii iyadan dhibaateeda leh waaye waa run qofkii dee wuxuu cuno hadduusan haysanin qutriyomkii uu raadinayo runtii waxay kale uu ka fikirayo marka waa adag tahay arrintan waliba ilaalinta sharciga iyo dadku inay maaragtay u hoggaansanaadaan nidaamka cusub ee soo baxay si looga hortago faafidda cudurka runtii waxay u muuqataa taas inay tahay caqabada ugu weyn runtii ina haysata markaan kulli idin dhegaystay waxaa jirta su'aal aan ka helnay qaybtii su'aalahaan gelaynaa haddeer su'aal aan ka helnay daawadayaasheenna liveka facebooka waxayna ku socotaa sheekh maxamed ayay ku socotaa su'aashu waxay leedahay sidee baa maaragtay aanu uga hortegi karnaa
runtii dadka iyagu maaragtay qofkii u geeriyooday cudurka tacsidiisii oo kale booqashadii tacsidii ama duugidii aaskii oo kale dadku inay isku raacaan ayay in badan samaynayaan annaga hadda waddankan aan joogno kale UK runtii waa la joojiyey oo nidaam baa laga soo saaray in 10 qof ka badan aysan tegi karnin meydka dhiqidiisa iyo maarkino asturadiisa iyo wixii dad loo tababaray oo qalabkii ka hortaga qaba ayagoo loogu talagalay ayaa dhaqmihii iyo waxaas oo dhan ka qayb qaadanaya ehelkii keliyana maaragtay inay maaragtay dadkii u xigay dadka inay iyagu tagaan ayagoo haddana la ilaalinayo masaafadii xataa dadka isku jiraan waxaas oo dhan qorshooyin ayaa loo sameeyey marka haddaa bal macluumaad inaga siisid sheekh maxamed arrintaas maaragno ku saabsan aasidda maxay Kenya maaragtay nidaamka ay ka soo saartay ama ay dadka inay ku dhaqmaan ay tahay muxuu yahay iska haddaad unmute isku samaysid Dr. Sheekh Maxamed arrintan aaska ku saabsan waa arrin runtii dhib weyn leh يعني culture-kii ama Soomaalinimada ama Islaamnimada dadkii inay ka tagaan inay la qabsadaan waqti bay horta qaadanaysaa waxaan ka warhayaa dad fara badan inay tagaan qubuuraha dowladduna waa haddee resource waddankan hadda ku filan oo waxaa lagu kontrooli kara bala shuruuc badan baa la dejiyey laakiin shuruucdii waxay u baahan yihiin in la maaragtay la exclude garayo marka dowladdiina dee meel walba ma taagna marka Soomaalidu runtii arrintaa way aad bay u sameeyaan dhakhaatiirtuna waxay noo sheegeen qofka cudurka u dhinta coronavirusku inuu yahay qof yani sidii qof cudurka qaba oo kale uu contagious inuu dadkii qaadsiin karo saa darteed ayaa culimada hadda qaar badan oo ka hadla waxayba dhaheenba xitaa marka laga hadlayo dhaqidda qaarkood waxay dhaheenba maadaama la yidhi waa shahiid qofki maba loo baahnaba in la dhaqo marka hadday xataa adag tahay lianna dhaqiddii waxay keenaysaa in cudur laga qaado haddii marka aan proper procedure la isticmaalin mathalan dee meelo loogu talagalay iyo power hoses maaragtay qofkii halkaa lagaga buufinaya iyo qaab noocaas oo kale haddii loo haddii jirkii lala mubaashirayo it can contaminate marka haddii la dhaqi karo waa la dhaqayaa meydka sida shareecadu ay tahay haddii la dhaqi haddaan la dhaqi karinna dadkan maadaama qofka khaasa cudurka u dhintay asal ahaan waxa weeye qofku hadduu shahiid yahay lama dhaqo looma baahna in la dhaqo marka middaa waa middaa tan kalena waxay soo hoosgelaysaa dee arrinkii ahaa cudurkan in laga fogaado oo aan la isqaadsiinin marka arrintaas way ku badan tahay qofku markuu dhinto Soomaalida waliba Kenya xabaalaha waxaa la geeyaa qubuuraha xaafadda Langata ku yaala la geeyaa laakiin khiyaarta way yaqaanaan dad badan baa la yimaada mushkiladuna waxa weeye haddaad tegi weydo waxa weeye nin reerkii gooye baad noqonaysa reerkii aad qaraabada ahaydeen ama aad ehelka ahaydeen oo qof ka dhintay ayaad maaragtay ka dhuumatay oo qaraabo goys baa tahay fulay baa tahay maqnaanshaha mararka qaarkood dadkii waxaad arkaysaa ayagoo ka baqaya wixii haddana kule ma maqnaan karo wixii ugu dhici hay ugu dhacaan marka mushkiladuna waa istigmadii bay haddana mar labaad arrintu dib ugu noqonaysaa marka in la isla fahmo oo haddii geeri qof ku timaado dadka kalena ay la qabsadaan oo ay dhahaan okay xaaladdanaa jirta yaa ma naloo imanaba inay dhahaan waad mahadsantihiin waan idinka qabnaa tacsida annaga hawshayada dabaranayna meeshiina nooga soo duceeya qofka dhinta u soo duceeya stay where you are adigana naftaada haligin laakiin waxa way dhaqankaa weli ma jiro marka weli waxay dib u soo noqonaysaa arrintii wacyigelinta dadka waa run laakiin ma samayn kartaan adinka ilaa hadda arrintaas fulinteedu waxay u taallaa culummada oo iyagu dee aaskii iyo waxaasita ku shaqo leh iyo dowladda hoose magaalada hadba markaas la joogo marka in dadkii loo sheego oo la yiraahdo nidaamka hadirtaan jira ee qaabka dadka loo aasayo waa sida tan dadkii oo dhanna marka la wargeliyo suurtagal ma ka tahay marka Kenya
dadka waa la wacyigelin karaa oo waan wacyigelinay oo anigu hadda ka hor arrinkaa waqti horaan ku baraarugay waraysi baa jira BBC da aan siiyey almost 2 months ago oo markii aan ogaaday aan akhriyey artikalo maaragtay authentic ah oo muujinaya qofka hadduu dhinto maaragtay inuu weli cudurkii laga qaadi karo markaasaan ka hadlay sidii loo dhaqi lahaa in maaragtay dee personal protective equipmentigii la xidho aan la taabanin haddii la iska dayn karana la iska daayo marka waa loo sheegaa dadka waana u sheegaynaa insha allahu tacaala hadduu qof dhinto soomaalida hadda wayna maqlayaan hadduu qof dhinto walaalayaal oo cudurkaas looga shakiyo inuu u dhintay ama uu qofkaagu dhinto qof adiga kaa socda I rather may come from this other side qof adiga walaalka ama ehelkaaga hadduu dhinto oo cudurka uu dhinto ama looga shakiyo inuu cudurkaa hayay fadlan dadka waxaad u sheegtaa inayna isu soo dhibin oo ina tacsiin imanin oo ina aas imanin si ay naftooda u badbaadiyaan una sheeg inaad raalli ka tahay maqnaanshahooda aanad garanayso wadciga maanta jira inuu qof kasta oo laga dhinto uu gudbiyaa marka taa marka waxay keenaysaa qofku inuu yidhaha okay this person understands marka waan iska joogaya hadda ma aaday وارن أدب ما سنتها شيخ محمد سؤال بحان سؤال بدنا كاينا ما قينا كبو ذكاري كرنو وقت قبوينا هيا لكن دكتور محوها علي سؤالي نسوي ديين دad ka markino live ka inuu jiro Facebook oo ah maxaad kula talin lahayd dadka sidii ay maaragtay ay u fulin lahaayeen ama inay maarkino runtii ay aqbalaan sharciyada la soo saaray si maarkano cudurka faafidiisa looga hortago aan mutada isku sameeyay Dr. Ali waad mahadsantiin qofka su'aasha soo weydiiyay su'aal wanaagsan weeye sidaan hore u sheegnay cudurkan daawana ma laha talaalna ma laha ka hortagiisa kaliya waxa waay shuruucdan noola sheegay mar hadduu kugu dhaco uu kugu dhacay ama waa ka baxaysaa ama waa qoofsanaya markan muhiimka waxa waaye dadka in ay fahmaan wax ka hortag ah oo daawo ah ay lahayn intaan ka ahayn dadaalka qof walba shakhsiga aad samaynayo maxaa yeelay cudurkan dawlad wax walba waa samayn kartaa waxay askar ay jidka dhigi kartaa TV-da ay wax noogu sheegi kartaa dhaqaale ayay keeni kartaa laakiin mas'uuliyadda cudurkan siduu sheekh hore u sheegay khayr Allah siiyo arrin muhiim oo aad iyo aad aan Soomaalida kala hadlayno stigma ku saabsan oo aad noogu iibiyay laakiin mas'uuliyadda waxay fuulaysaa shakhsi walba cunug yar hataa waa fuulaysaa mas'uuliyaddan in la fahansiiyo ilmaha dadka dhalinyarada oo aad u socodka badan oo energy-ga badan ayaa ugu daran weliba dadkeena Soomaalida dadkaan wax fahmayn laakiin waxaan moodaa dadka Soomaalida in kaliya aan wax ku fahmayn markay wax nagu dhacaan maalin dhawaatay magaalada aad joogto London aan gabar ka dhageysanay waxay tiri maalintii hore cudurkan nool imaaday oo shuruuc noo imaaday oo noolo sheegay oo shuruucdan u hoggaansamana lahay ogo waa iska fududaysanay laakiin waxay tiri waxa igu dhacday aabaheed miya ayaa u dhintay qof kale oo qaraabo hoos ahiina u dhintay dad badan oo qaraabo hoos yihiin isbitaalki ayay galeen fursad ay ku soo fiiriso ay ku soo booqatana waa loo waayay marka ayadaheed ayay leedahay war Soomaaliya aniga igu dhacday in aan dhageysan waayo shuruucdan iyo arrimahan in aan u hoggaansamo waa arrin aad simple way complicated ma complex ma kaliya dadku waxa leeyahay 5 shay 6 shay oo idin sheegayna fadlan u hoggaansamo waa la isku soo noqon doonaa hadda la nool yahay masaajidadii masaajidka haddii aad habeen walba aad u ordo oo cudurka keento adiga kugu dhaca masaajidku wuu joogaya waa ku tukani doontaa laakiin hadda qasab ma inaad tagto waxaad u haysataa fursad rusqa ayaad u haysataa sidii sheekhda iyo culimada iyo sheekh shakuul ay noo sheegeen ha ka joogeen afurkan la isu imaadaa ha laga joogo maqaayadahan la isla galaya ha laga joogo maskiga ha la xirto haddii aad joogi kartana guriga joog annaga meel walba oon joogno yani caalamka waxaad moodaa inaan bartilmaameed aan ka nahay dhaqanka yani iyo nidaamka aan shuruucda aan ugu hoggaansamayno run ahaantiina annagoo dad muslimiin oo wanaagsan isku tilmaamayno oo weliba meel fog ka joogno wadamahan joogno especially dhinaca beecsharada iyo dhaqaale soo gelista waddankan joogno dadaalka aan samaynayno annagoo xushmad badan ka haysana haddana waa in sida ayadaheed aan u tunsiino
in aan u hoggaansami karno shuruucdan ilan diinteenna noo sheegaysa inay naga muuqato waay diinta meel walba aan joogno dhinaca dhakhtarnimada keliya ma aha ma rabna fursad yani level inaan gaarno aan awowgayn iyo hooyayaalkayn aan la dardaarmi waayn sababaan anaga keena daraaddeed maxaa lama dardaarmi kartid mar isbitaalka hadday gasho bannaankaad ka joogaysaa sidii aadna ugu tegaysa waxaa dhici karta qof marka ayada neefta ku dhigta kula hadlaayo ku sheekaynaa in ambulance lagaa saaro oo lagaa qaado oo mardan marka ugu dambaysa markaas ay tahay dadka waa inay fahmaan kuwa kenya jooga kuwa soomaaliya jooga kuwa meel walba jooga waxaa kaloon rabaa jawaahir dadka inaan u sheegno waana jawaabta inaan bixiy keliya ay ahayd soomaaliya iyo meelahan aan soomaalida aan ku noolnahay nambarada noola sheegaya been waayo nambarada noola sheegaya waxaa waaye inta dowladda dabarteeda ay gaarsiisan tahay oo baari karta haddii aad 1,000 qof baarta 100 qof aad helay haddaad 10,000 baarta 1,000 qof aad helay haddaad 100 baarta 10,000 qof aad helay so nambarka aadaas u badan yahay nambarada noola sheegaya aan dhab u qaadanin aad iyo aad ay ugu badan tahay suuq ay ku jirto anigu dadku waxaan u sheegaa qof alle qof next oo ku dhow inuu cudurkan qabo ka soo qaad sidaad ugu fogaan lahayd ku dadaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cali runtii waa maaragtay talooyin aad u wax ku ool ah weeye waana sida keliya aan uga hortegi karno cudurkaanna mana aha runtii in annaga ay tahay xanibaadna la saaran inay tahay maahane waxa weeyaan waa daryeelkeena weeye daryeelkeena caafimaadka ayaa ku jira inaan guryaheena joogno oon annagu is ilaalino dadka aan jecelnahay oo ilmaheena iyo waalidiinteenna iyo dadka kale oo ehelka iyo soomaalida kalena ayagana aan iyo ummadda kaleba aan ayagana caafimaadkooda ilaalino waxaan jeclaan lahaa runtii su'aaluhu aad bay u badan yihiin su'aal inaan maaragtay aan isugu daro Faadumo 2 su'aalood oo ah maxaad u malaynaysaa saameynta maarkan oo joogtada ah ay ku yeelan karto gabdhaha iyo ilmaha adiga u adeegtaan iyo maxaa maaragtay caawinaada ama daryeela aad u fidin kartaan haddii dumarkaasi ama carruurtaasi uu ku dhaco cudurka COVID-19 Faadumo soo dhawow فاطمة مقلسة أنا موت هذا موت كجرت إن شاء الله. sorry ودي مقلسة هذا ها واكم مقلنا ولا شيء سا. horta waa mahadsan tahay su'aasha waxa waaye dibka ay u keenahay gabdhaha oo maaragtay caruurta horta iskuulka waa muhiim wixii aan u dadaalahayno inay ilmaha wax bartaan waaye haddana waxaan u maleynayaa maxaa lagu socdaa bishii labaad oo dhamaanaysa tii saddexaad aan ku socono oo ilmihii iskuul ay akhrisaneen taas waxay tusahaysaa ilmihii oo loogu talagalay inay imtixaanka sanadkan u fadhiistaan waxyaalo dhib weyn bay u keenaysaa because dalaal bay u dhacahayaan maxaa dhe waddankanaka Kenya sanadka markuu dhamaanahayaba ilmaha form 4 ilmaha class 8 ka imtixaan bay u fadhiistaana that means ilmihii umay akhrisanin ilmaha cidda ay joogahayaan dugsina ma aadahayaan madrasa ma la aadahayo iskuul lama aadahayo marka ilmaha from oo private ka akhrisanahayaan sida lagu maamulahayaa laakiin ilmaha hadda government ka akhrisanahayaan amal cidihun bay iska joogan wax maamul fiican oo ay haystaan malaha khaasatan deegaanka waqooyi bari waxaa la leeyahay ilmaha waxaa lagu barahayaa televisionka ilmaha waxaa lagu barahayaa maaragtay radioyaha waxaana ka imaanaa meel aan awoodi karin xataa maaragtay nal iyo la heli karin qalabka ay hadda dowladda ayada ay sheegahaysa waxyaalahaasa dhibka horta oo tacliinta dhinaceeda ka imaanahaysa teeda kale waxaa waaye violenceigana high buu ku noqon hayaa gabdhaha because markay guriga joogaan oo waxbana ay samaynahaynin maxaa la arkaa maaragtay in la fara xumeeyo in dhibaato fara badan ay gabdhaha hadda saan kuu sheegahaya teen pregnancy ayaa iska badanta hadda case baan ku jirnaa oo gabar intay xamli noqotay inta iskuulka lasoo xiray xamli noqotay kii qofkii saas ka dhiganaya intuu daawo siiya gabadha hadda critical bay ku jirtaa oo maaragta isbitaal bay taallaa marka dhibabka ay u keenahayo COVID-19 waxaa waaye iskuulka markay joogeen maskaxdooda waxyaalaha ku mashquulsanaayeen oo buugagtooda wixii ku mashquulsanaayeen hadda wax lagu mashquulsanahay malaha cidun baa la iska joogaa maaragtay simply baa lagu heli karaa gabdhihii haddii la rabo oo waxyaalahaasa dhibka u keenahaya teeda kale waxaa waaye dhibka uu COVID-19 gabdhaha u keenayo waxaa waaye hadday gabdhahanayto support ay meel ka helayeen hadda annaka camal we are working from home direct contact gabdhihii lama nahno haddaan direct contact gabdhihii horaan markaan la lahaynayna mentorship aan u samaynayna trainings aan u samaynayna caawimaad oo waxaan u geyni jirnay dignitary kidskaan siini jirnay hadda contact lama lahno because shaqooyinkoo dhan waa la joojiyay jidxiran baa dhacdo wax kala socdo ma laha waddankii
gabdhihii intu walbana ciddooda ay joogtaayo iskuulladan horaan ugu tegi jirna hadda iskuul loogu tegi malo iskuulkii wuu xiran yahay hadday gabadhii ay awoodi karin maaragtay dignitary kidka like sanitary towelka ay awoodi karin horaan annaka u qaybini jirnoo siini jirnay hadda gabdhihii meelaan ku siin karno ma laha because dadka waa la kala xiray looma tegi karo oo maaragtay she is suffering in silent ay ku saafagaran haysaa maxaa hadday cid sabool ay ka imaato oyna awoodi karin dhibkii egan wuu haystaa haddii iskuulka caawini jira uu siini jiray iskuulkana ay uu xiran yahay oo ay ka heli jirin dadka organizationyaashina ay aadi karin oo ay siini karin gabadhaas hadda she is suffering in silent oo maaragtay hadday qofna inay u sheegan karin la arkaa oo dhihi karin waxaas baa iga maqanay maaragtay sideen ku helaa laakiin hadda waxaan samaynaynaa girls rightska aan fiirin haynaa within COVID-19 maxaan extra aan gabdhahan u qaban karnaa other than sanitation programka kaliya maxaa kaloo siyaada aan qaban karnaa wixii kaloo siyaada u qaban karno waxaa waaye inaan dignitary kidkooda sidan sanitationka qalab u siinayno gabdhahana inaan siinaa dumarkana inaan siinaa haddii cash program yar gabdhaha aan siini jirno inaan siinaa because si uu sheegay walaalkay shaqo ma jirto waddankii shaqayii way kala xiran yihiin dadka gurihii baa lagu soo noqday wax kala socdo ma laha haddii cash transfer aan siini jirno inaan u kordhinaa hadda annaka gabdhaha 2,000 baan siini jirno bil walba hadda waxaan ugu talagalnay inaan 500 siyaada aan ugu darno sifay maaragtay intay dukaanka u tagto ay soo gadato dignitary kidkeeda ay u awoodo because horaan dignitary kidka annaka intaan prokeedarayno gabdhaha siini jirno hadda ma siini karno because waan kala xirannahay so waxyaalahaasaan hadda isku daahaynaa sidaan gabdhaha aan wax ugu qabani lahayn aad iyo aad u mahadsan tahay Fatima runtii xaalad aad u adag waaye think markino especially qaxootiga iyo arrimaha sayta deegaanada sayta ayaga keligooda waxay u baahan yihiin barnaamij gaar runtii in laga sameeyo iyo sida markino loo taakulayn karo su'aalo ku wajahan muxuu ahaa Caaqil Cabdiraxmaan markino waxay oranaysaa su'aashani dadka maragtay Facebook ay noo soo gudbiyeen ma jiraan maaragtay waxyaabo adeeg ah oo kaalmeynaya dadka maaragtay dhibaataysan xilligan oo kale COVID-19ka uu sababay sidoo kale shaqo la'aantiiba ka hadashay waxaad ka hadashay dadkii maaragtay oo dadka aw la afuri jiray oo maaragtay hadirtaan meel cidlaa ku soo dhacay ma jiraan maaragtay adeegyo loogu talagalay oo dadkaasi caawin kara sidoo kale waxaan ognahay dhinaca markano xawalaadihii xataa inay dhibaatooyin ay ka jiraan oo dadkii markano qurbo joogta ah lacagihii ay diri jireen ama ay yaraadeen ama qaarkood ay ku xaniban yihiin meelaha qaarkood wadamada qaarkood taasna ay maragtay keentay iyada laftigeeda dhibaatooyin ay u keentay dadkii maaragtay ama Kenya ha joogaan ama Soomaaliya gudaheeda ha joogaan deegaanadaasayto ka heli jiray taakulaynta qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamadan reer galbeedka marka soo dhawow Caaqil bismillaahi raxmaani raxiim jawaahir dhibaato badan ayaa ka jirto xagga dadka because dadka waxay ku noolaayeen inta badan qaarkan waxba haysan shaqayn shaxaad bay ku noolaan jireen Soomaalida waa dad wax istaro waxaa laga qofka inuu maqaayada kugu yimaado ama baqaarka adoo jooga ama dukaanka waxbaa la iska siiyaa loo tuuraa waxaasuu biil ka dhigtaa hadda county governmentiga Bombaaso waxay sameeyeen budget loogu talagalay dadka tabarta daran aan waxba awoodin ama aan shaqaysanin ganacsato badan lacag bixisay macnaha meel weyn oo go'doon oo baqaar la isugu keeno cunto iyo raashin nooc walba ah dad badan baa lacag badan ilaa 20,000 qaar bixiyo oo mucaawino ah dadkii raashin baa loo qaybiyay laakiin sidii loogu talagalayna may dhicin because dadkan iska taqaana waxa badan ay musuqmaasuq iyo corruptionka meel lagu jira dadkii subaxa safka u galay qaar kamid ah la sheekaystay raashinka inay qaataan waxay ka soo noqdeen galabtii ayaan waxba soo helno ebera marka dadkii wax gaaray malaha haddana saas tahay dadka xaafadaha qaar ay ku xiran yihiin hadda ma ka soo bixi karaan habeen iyo maalin way xiran yihiin cunto ma haystaan waxay cunaan ma haystaan qof wax siinaysana ma laha waana dad badan oo danyar ah marka dhibaatada way badan tahay runtii dadka qaar biilasha loo soo diri kartaa biil lama diri karo aniga ahaan khaasatan markaas ka warma tusaale ahaan dad badanaan biili jiray oo meelo badan jooga Soomaaliya Suudaan qaar arday aan ku biilaa hadda aniga 7 bil halkaan joogaa marka qof walba waxa adkaanaysa biilka inuu sii wado ama inuu yareeyo naqanaysa kii bixinayo inuu sii yareeyo biilku bixin jiray ama kii kale inuu awoodi waayo inuu bixiyo marka dhibaatada aad bay u badan tahay maxaa la dhahay dadkii waxba ma haystaan zero dhulkay joogaan marka xataa waxaa ka dhacday magaalada Bombaaso qiso cajiib aan hore uga dhicin hooyo oo dadkan sawaaxiliga ah ayaa waxay haystay 7 caruur 8 caruur haysatay
caruurtii baa habeenkii bay casho iyo qada iyo quraac iyadoo siibay habeenkii ciyaalku way ka seexan waayeen dhagxaan bay soo qaaday dabkay u saartay digsi bay ku shubtay way shiday dhagxaantii bay karkarisay ilaa ciyaalka ay ka seexdaan ciyaalka qaarka weyn ayagoo og hooyada inay waxba hayn ee dhagxaan karinayso ayay ciyaalka habeenkii saa ku hurdeen marka waxayna qiso aad macnaha u xanuun badan waxaan kul u malaynayaa sheekh maxamed uu garanaya xilliga asxaabadii waxyaabo noocaas way dhaceen oo qisooyin noocaas oo gaajada darteed macnaha in waa ciyaalka lagu sabo macnaha dabka inay wax saaran yihiin marka magaalada waxaa ka dhacay qiso aad cajiiba hooyo ciyaalkeedii dhagxaan u karkarisay intay waxay cunto siisa weysay xaalkaas bay arrintu maraysaa marka ilaahay dadkana u gargaara ilaahayna koroonaha naga soo qaado waqtigiisa insha allah aada u mahadsan tahay cabdiraxmaan runtii xaalad adag weeyaan kuleba xalka inaan fiirino waayo maxaa xal ah oo la qaban karaa waana runtii waa wax lagu farxo maaragtay oo diilo leh in dowladda iyo dadka maarkin oo hay'adaha samafalka ama ganacsatada ay xil iska saareen inay dadkaas siday u caawin lahaayeen isku caawiyaan waxaan jeclaan lahayn inaan su-aashaan la qibsanno dr sheekh maxamed oo facebook ay naga soo gaartay waxay leedahay su-aashani ma la ogol yahay dadka in la garaaco haddii ay u hoggaansanaan waayaan sharciga waxaan maqlaynay in la yiri dadka markan oo mararka qaarkood askartu way garaacaan haddii banaanka ay usoo baxaan oo ay sharciga u hoggaansanaan diiniyan maxay ka qabtaa ayay su-aashani tahay sheekh maxamed tafadal bismillahi raxmaan raxiim arrintaa garaaca arrin aad foolxun weeye dadka in la garaacana maaha waana khalad askarta kenyana shacabka abuse bay ku haystaa dowladduna way ka hadashay hay-adaha maaragtay xuquuqul insaankuna way ka hadleen abuse aad iyo aad u fara badan ayay ku haysaa marka in la aqbalo maaha qofka markii intii maxkamad la saaro wax lagu xukumo marka kabacdi wixii xukun ay ku dhaca waa meesheeda laakiin askartu abuse-ka ay wadaan waa khalad weeye hadda waxaa la tilmaamaa inay xataa dadka qaarkood police brutality ka dhacaya Kenya marka arrinta arrin aad waddanka uga jirta weeye waana dhib aad u weyn weeye mana arrin diiniyana in shacabka la garaaca maaha qaanuunka internationalka meel walboo tagtana qofka bini'aadmiga xur buu leeyahay xuquuq buu leeyahay in xuquuqdiisa la abuse gareeyo maaha marka waxaa fiican in dadkaas maaragtay la duubo oo maaragtay social media la soo geliyo dowladda loo gudbiyo dadka waxaa samaynaya runtii way aad bay u jirtaa askartuna waxayna fahansanayn waxa meesha u joogaan waxa weeye dadkii in la badbaadiyo yacni ninba wuxuu ii sheegayay baabuurka wuxuu rabay malaha inuu gadaal u soo geliyo marka hore u geliy gadaal buu rabay inuu soo geliyo askar baa waxay tiri karfigii baad ku xadgudbaysaayo aniga property ku dhex jira bixin marka danin wuxuu ahaa aqoon laho aan maaragtay la khaldi karin oo maaragtay wuxuu yidhi waadaana la xiriirayaa haddii kale hadda halkaa ka taga meeshaasay rabaan lacag iyo maaragtay balaayo ka qaataan marka garaaca sax maaha lamana ogola dowladduna ma ogola sharciguna ma ogola diintuna ma ogola qofkuna inuu ogolaado maaha inuu garaaco you should not accept anybody to abuse you marka intaas aan dhihi lahaa haddaad aad baa u mahadsan tahay dr sheekh maxamed shakuur waana kaaga mahadnaqaynaa waan ogahay inaad maaragtay daahsan tahay waana ku fasaxaynaa insha allah mar kale jazakum allah khayran sidii wanaagsaneyd nooga soo qabtay noogala soo qayb gashay barnaamijka insha allah mustaqbalkan haddaan u baahnaano inaan wacyigelintaasi taa nagala qayb qaadatid waan kula soo xiriiraynaa jazakum allah khayran aad baa u mahadsan tahay sheekh maxamed waxaanu soo galnay gabagabadii I think barnaamijkeenna su-aalihii intooda badan waxaan u malaynayaa inaan intooda badan aan ka wada hadalnay waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay guud ahaan su-aashani waa su-aal kulligan inoo wada taalla dhibaatooyin badan aan ka wada hadalnay oo soo noqnoqday inta badan waxaad u malaysaa inay kusoo noqonayso dhibaatada dabcan dhaqaalaha saameynta uu ku yeeshay cudurkan mujtamaca waa wax weyn waaye barnaamij asaga khas ayaanu ka samaynay wiigagii lasoo dhaafay waan wax u baahan runtii mar walba in lala socdo oo la fiiriyo maxaa maarkino caawinaada oo la samayn karaa si dadka uu u saameeyey cudurkani dhaqaale ahaan wax looga qaban karo
laakiin cudurkan ka hortagiisa haddeertan ugu muhiimsan faafidiisa ka hortagga faafidiisa waxyaabaha ugu badan oo soo noqonaya waxa weeye in dadka iyagu runtii aysan inta badan ay sahlanayaan oo aysan sharcigii aysan iyo nidaamkii aysan u hoggaansanaamaynin sidee baa u aragnaa guud ahaan xal haddaan soomaalinahay meel kasta aanu joogno in aan uga qayb qaadanno ka hortagga iyo faafidda cudurkan maxaanse ku odhan karnaa dadkeenna runtii sahlanaya arrintan oo aanu aragnay in dad badan oo xataa waxa laga yaaba hal qoys dad badan ay ka baxeen runtii way u furan tahay qofkii raba inuu ku hormaro ama Dr. Cali ama Caaqil Cabdiraxmaan ama Fatima soo dhawaada waxaan idin siin lahaa 1 minute aanu kusoo gabagabaynayno insha Allah xalka bismillah Jawaahir horto waanu ku celcelinay waxayna ku soo gororsanaysaa halkoo shay sidaan hore aan u sheegnay halkaas soo shay oo in qof walba as u hoggaansama shuruucda iyo guidelineska noola sheegay sidaan hore u sheegay complicated maaha complex maaha waa arrin aad iyo aad u fudud keliya meesha ay caqabada ka jirto waxaa waaye dadkii oo ugu hoggaansami lahaa cudurkan inuu jiro ilaa ayaga as ku dhaca ama qof ehelka oo qaraabada oo jecel yihiin uu ku dhaca oo asiiba ma ogi soomaalida waa ku celcelinaynaa intana dhegaysanaysa inta kale oo sii gaarsiin karaanba ha u sheegeena ay ka dhaga adkaanin culumadii waxay noo sheegaysaa waxaan diini ahaan nidaamkii la soo deji inay xalaal tahay oo wax loo gal yahay ay tahay dhaqaatiirtii in sidaa oo kale ayay noo sheegaysaa madaxdii waa noo sheegaysaa siyaasiyiintu waa noo sheegayaan sababta keli ay cudurkan noogu faafi karo waa inaadan dhegaysanin wacdigan iyo waanidan wanaagsan oo noola sheegayo dadkii isbitaalihii Soomaaliya camal haddaan ka soo qaadnay aad bay ugu yar yihiin weliba isbitaallo dowladeed ma jiraan sidaan filayo waa isbitaallo yar oo private bulshadoo dhanna ma xamili karta qof walba inuu isbitaalka tago oo lagu daaweeyo dad yar oo aad u asiibi ama neefta ay ku dhigtay ama aad u xanuunsan baa isbitaal as qaadi kara isbitaalaha aad ay yar yihiin marka ha keenin adin dhibaato isu keenin familka dhibaato u keenin bulshada dhibaato u keenin dadkii isbitaalaha daaweyn lahaa iyo dhaqaatiirtan inay overwhelmed noqdaan oo wax daaweyn waayaan sabab ha u noqonin insha Allah dadku waxaan ka filinaynaa Soomaalida inay isbartaan wixii hadda ka bilowday arrimahan dhageystaan ay u dhoon daleelaan ay dhageystaan insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay Dr. Cali caaqil wax kelmad muu ku dari lahayd adiga maxaa kelmad oo ku dari lahayd gaar ahaan dadka uu runtii cudurka saameeyey ama ahaato si maskaxiyana ama si dhaqaalaha ahaato maxaa xal u aragtaa caaqil Cabdiraxmaan Jawaahir waa mahadsan tahay xalka waxa waaye horta dadka dhibaatada waxay ka haystaa ayagoo wax marka hore haysan oo dan yar ahaa oo dhaqaale xumo haysay iyo cudurkan oo meelihii ay wax ka heli jireen ama shaxaad ku tagi jireen oo la xiray marka waa dhibaato aad u fara badan iyo dadkii oo maxaa la dhahayay shuruucdii iyo nidaamkii loogu talagalay aan u hoggaansamayn dhibaatada way badan tahay balse insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay hadda waqtiga uu iska dhamaanayo marna hadda koronaha Afrika uu ka sii dhamaanaya inuu Ilaahay ummadda u sahlo u fududeeyo inuu Ilaahay farad qeyb u furo maadaama 10 dambe lagu jiro dadka in loo duceeyo Ilaahay inuu waxan ka kaxeeyo kullay wax taas aniga macquul Ilaahay waxa kala dhan waa iska dhibaday dadka lacag lama siin karo lamana biili karo oo qof dhaqaalahaysa ma jiro dadka dhaqaalahaysta cabanayo dhibaato badan qabo marka insha Allah in la duceysto Ilaahay la tala saarto oo dadkana maxaa la wacyi geliyo intaas looga bixi karaa aad iyo aad u mahadsan tahay caaqil runtii waa muxuu ahaa taladaas markino wax ku olka ah Fatima soo dhawow minadka ugu dambeeya insha Allah waxaan u malaynay voluntary testing in iska sameeyo oo la ogaado xaaladaada say tahay maxaa waxaan markuu isugu yahay waa wax laga gaari karo oo uu dib uu aad u ku sikeenin oo ma aragtay maxaa dhaqtariinta qaarkood mise researchers qaarkood waxay leeyihiin long term effect hata uu kugu leeyahay maadaama voluntary ma aragtay testing iska jirto inaad iscabirto haddaad qabtoon inaad ma aragtay cararin oo daawooyinkaada wixii aad qaadan karto aad qaadato oo meel ma aragtay aad kaaliga isku xirto iskarantayso intaad dadka kale cidda adiga aad jeceshahay aad sii gaarsiini lahayd waxaan u malaynay wacyigeli aad waa loo geliyay laakiin hadda Soomaali waan ka nahay waa socialization-kan aad u jecelnahay marka waa inaan ma aragtay annagana aan iska bixino socialization-ko inta cudurkanayto uu socdo oo ma aragtay caafimaadkayna aan priority-ga siinaa
كان waxaan dhihi lahaa un testingna hala sameeyo dadkana hala sii wacyigeliyo marka socialization faraha badan aan iska yarayno oo social distance kan aan ilaalino waa sax waxa weeyaan waa runtii fariin aad iyo aad qaali u ah weeyaan taasaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii maanta ee ku saabsanaa COVID-19 iyo sida uu u saameeyey jaaliyadeena Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya iyo sida maaragtay dadkeena firfircoon ama dhaqaatiirta ahaadaan ama jaaliyadaha dadku adeegaha ahaadaan ay runtii u dadaalayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen ama dadku u taageeri lahaayeen daryeelkooda iyo caafimaadkooda uga qayb qaadan lahaayeen culamadeena qiimaha weyn leh mar kale aan u mahadcelinayaa Dr. Cali Maxamed Faatimo Kinsi Cabbaas Sheekh Maxamed Shakuul iyo Caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh oo barnaamijka nagala qayb qaatay waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa Maandeeq oo runtii ah laf dhabarteena mar walba barnaamijyada markaan qabanayno qofka maaragtay behind the scenes ka mar walba waxaan isku soo dubarida iyo barnaamijkan asagana Axmed Tooxow oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha qurbo joogta Soomaaliyeed Australia oo asaguna qayb weyn ka qaatay runtii isku soo dubarida barnaamijka aad baan ayagana ugu mahadnaqaya iyo teamka GS3 oo dhan oo runtii ka qayb qaatay sidii barnaamijkan loo fulin lahaa jazakumullah khayran iyo intaan maaragtay mar kale wada kulanno waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale asxaabteena Facebooka ama Twitterka nagala socotay waa mahadsantihiin kulligiin jazakumullah khayran maalin wanaagsan talooyinkana aan raacno guryaheena aan joogno masaafooyinkana runtii aanu ku dadaalno aad baa u mahadsantihiin